sidee u ekeed magaalada Hargeysa maalinkiisa aad barakatay maantana sidee u egtay yaa ku dhacay mar labaad qalad hore ugu dhacay maxay ku kala bedelayeen magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa ma been la soo sheegay ma dadka way wax kala ma waxa kala bedelan waa dadka maxay yeelay dad xisaabtamaayo dad xisaabtamina la kala noqdo Soomaaliland waxay noqdeen dad damqara xanuunkii ilaa hadda dareensan yihiin dawladdiisa aad bar ku duqeeyay meel dhigteen wixii ku dhacay garanay 28 sano ka hor shalay wixii ku dhacay wiyo ma garanayaan xala farmaajo u yimid nolol beeko ay shiday oo ay cagcagaareysay horumar la gaaray kuleeyay warre Soomaaliland annaka naga bedelowday taladu yeeshay ka dhumin waxaan rabnaa annaka reer Muqdisho aan dhahno war magaaladaas aan hiigsano oo maxay ku badbaadiyay waxay ku badbaadiyay dadkeeda degan oo maxay ku badbaadiyay odayaalkeeda nool oo maxay ku badbaadiyay ayadaa tashato oo maxay ku badbaadiyay nin America ka yimid uma soo noqonin nin America ka yimid go'aankeeda ma gaarin nin Ingiriiska iyo Australia ka yimid iyo Norway taladeeda ma go'aamin diaspora dhamaantii inta otomad kama talin dadkii jooga ka tashaday ayaka xogta haya kuwii jabhadda isnamaha ayaa go'aankeeda taladeeda wax ka yeeshay waxaan leeyahay Muqdisho waxa ka qaldamay oo ishan u yeelay waxay tahay odaygeedii ma go'aamin banoonigii hore waa iska beerdireeyeen 1990kii kii dambana waa iska beerdireeyeen oo ay heleen nimankii maartay madaxda hawiye nin baa la gubay laakiin Muqdisho maalin kasta waa lagu gubtaaba waxay soo qorayaan kuwa aan aqaano farmaajo ku hayba alla hawiye dambiga Muqdisho ku galay weyn badana nin bay gubeen farmaajo kuma nan gubay been la soo sheegay ma Soomaalidiid reer Hargeysa waa Soomaalidiid hal qola gada sida ugu waxaan rabaa kuwa badan oo reer Soomaaliland oo jeegaanta baruuq ku haya حتى عبد الملك موسى علدون waxaan rabaa inaan dhaho عبد الملك موسى علدون hadalkii ay hal jirtay oo Ethiopia xumaanteeda waa fiicneed laakiin burco waa lagu noolaa dadka lagu madilo lagu mana qarxiyo waxaan ku dhihi lahaa cad dhulka u dhig oo Somaliland buuq iyo propaganda waxba ku kicinin meel ay u soo rartay kama soo horeyso war waxa sheekada beenta adinkana waa ku qarabanaysaa kulli qoladeen isaaqa waa ku qarabanaysaani Muqdisho xeebtii geerida waaye mana deegi kartaan mana imaan kartaani war wixiina dhaqaaleysa Somaliland war Somaliland waxba haysataan wixiina barakaysta war magaaladina waa idoo qurxoon tahay magaaladina jooga war baaxis barbagandeynina war kibarka iyo tooqa jooga nin Somaliland tan tagay saakil dilaa lama arko waxa doonaysan waxa isku haystaan sad bursiyo iyo waxa isku haystaan dhaqaale iyo waxa isku haystaan mashruucyo nolol isku haystaan kuwa kale oo ku dhagan reer Somaliland ee ku haya jeegaan iyo baalkii wariyaa waxaan leenahay qabiilatu fooq digdiglayaalkii hawiye waxay leeyihiin askari bay dhigi kartaa askari ma iga dhigi kartaa qoriga ana watay reer Somaliland waxaan leeyahay ana wali johorad sida Jubbay iska joojiya propagandada ad meel alla fadhiisa reer Somaliland waxa la yiraahdaa hadii ilaahay ku reeyay waxa la yiraahdaa garxajis iyo waxa la yiraahdaa hadii ilaahay ku reeyay jeegaanta liira iyo ruuxa iska dhaafay waxba haysataan dhaqaalista dalka Soomaaliya wuxuu federal u noqday oo inuu federal noqdo federalnimo loogu hadlo qolo walba ee deegaankeeda iyo amnigeeda ka tashato loo soo qaatay waxay tahay dawlad ka gacan inay Hargeysa duqeydo ciidan magaalada Muqdisho ka tagana oo gurceel dad ku laayo iyo cadaado indhaha hawsho taagin inuu propagandada beenta ka sheegaysan reer Soomaaliland ka joojiyo